channelka subscribe noo dheh gambaleelka fur si ay kuu soo gaaro fiidiyoyadeena aan soo dhigno oo aad noqoto qofka ugu horeeya daawada. Like, share iyo comment waa mahadsan tahay. Leega qaaliga waxaan ka iloobay aan idin sheegin alaabtan kayd ma gasho meel ma dhiganaysid waa isla markaas ayaad u baahan tahay. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaad walaaleyga qaaliga meel walba adduunka naga daawanaysaan nabad iyo caafimaad ku daawo. soo dhawaada waa mar labaad iyo walaashiin Xushma oo idinla ku soo dhawaada channelka Xushma, niyad furan iyo qalbi saafi ah. soo dhawaada walaaleyga qaaliga meel walba naga daawanaysaa nabad iyo caafimaad ku daawada. fadlan haddii nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar, share, like iyo comment qurux badan. wixii dhiirigelinayna waa xaggiina. fiidiyowada hala share gareeyo, xagga like hana laga dhiso. soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad ayaan idin leeyahay ku soo dhawaada channelka Xushma, karin iyo qurxin labadaba ku soo dhawaada ayaan idin leeyahay. waxaan halkaan aan ku haysanaa alaab fara badan. waxaan ka diyaarsanaynaa body scrub. korka ayaa dhaqanaynaa scrub maanta kuma saabsano faceka, lugaha iyo gacmaha intaba kuma saabsano. wuxuu ku saabsan yahay jirka oo dhan ayuu ku saabsan yahay. jirka oo dhan aan dhaqanaynaa. nala arka idinkane. soo dhawaada waxaan ka diyaarsanayna iyo qaabka aan u diyaarinayno. ma fahanteen? hala soo dhawaado, korka hala dhaqdo, hala isnadiifiyo gabdhaha umusha, gabdhaha arooska, gabdhaha xafladaha aroosyada u socdo hala iskala kiciyaan ku dhahay halaga gaarsiiyo alaab yaro qurux badan oo maasha Allah oo kiimika aan lahayn oo gurigaada aad ku diyaarsanaysid, gurigaada aad ka helaysid oo wax yar oo dabiiciyo dhalaal iyo quruxna ku siinaayo waaye. meel walbana way yaalaan. waxaa lacag fara badan ka soo bixinaysid maaha, waa wax gurigaada ku yaala. inta badan gurigaada ayaad ka helaysaa. inta kale waa wax yar oo iska easy ah, marka ma ahan kiimikaal, ma aha qasqas wax jirkaada difeet ka gaarsiinaya ama caafimaad darro ku keenayana ma ahan. waa alaab yar oo kaaliska arag maasha Allah. nala arka idinkana. halkaan waxaan noogu jiro waxa noogu jirta qaxwo. qaxwo in lagu cabaa la yaqiinay soo maaha? in la cabo aa lagu yaqiinay, laakiin maya ma la cabaayo maanta. shaqo kalaa lagu qaba rabaa. qaxwo ayaa halkaan noogu diyaarsan. halkaan bakin soora ayaa noogu diyaarsan. bakin soora iyo hal xabo oo liimo dhanaan ah. inta waxaa noogu diyaarsan koofe ayaa noogu diyaarsan. waad u jeediin. halkaan waxaa noogu diyaarsan olver powder, dacartii oo budo ah ayaa halkaan iyadana noogu diyaarsan oo noogu jirto. ma fahanteen? inta waxaa noo yaala body scrub keeni ayaa noo yaala. body and face waaye, meel walba oo isticmaali kartaa. inta waxaa noo yaala cusbadii jirka lagu dhaqanaayo ayaa noo taalo oo lemon ah. leen ayay ka samaysan tahay. waad u jeediin amleynaa haafkaas yariiska ayaa ku jiro way dhabaatitan. intan waxaa ku taala iyadana waa cusbadii jirka lagu dhaqanaayo oo ka samaysan caano. milki ayay ka samaysan tahay. waad u jeediinaa filaya ayadan. inta isigana waxaa noo yaala biyaha maawarda ama rose water ama biyaha ubaxa hadba sidaa u taqaano. intan waxaa noo yaalo waa saliid saytuun. saliid saytuun ayaa noo yaala halkaan. alaabtaan ayaan isku diyaarsanaynaa, aan isku qasanaynaa. istiraab qurux badan ayaan kasoo samaysanaynaa. nala arka idinkana sidaa usoo samay doono. baaquliga waxaan ku haystaa asiga wax yaro alaab yaro faceka aan marsanayo wax ka hare ayaa ku jiro. marka waan kor qasanayaa nala socda sidaan u qasin iyo sidaan u diyaari doono. halkaan ku shubayaa qaxwadii ayaa ku shubay.
waxa kale ku daraya waa bakin sooradii ayaan ku daray. waxa kale ku daraya waa baashi korka lagu dhaqaayo cusbadi waaye fahanteen cusbada ayaan ku soo darsanaynaa ilaa cabaar ayaan ku soo darsanaysaa. inta waxaa noogu jiro cusbadii kale oo leenta ahayd ayaa noogu jirta liin dhanaanta ka samaysnaa. tan way dhammaanaysaa saaid uma soo dhiiqismayso. afka ayaan ka wada furaynaa. waa kaasaa asxaabta hala soo dhawaada janalka, ha lagu soo dhawaada janalkiini waaye. sabskraibka ha la iskugu dadaalo, lacag ma ahan asxaabey, meesha yartee farta le saasu saar mahaas yariiska le farta saas le u saara ku dhah dhag gambaleelka fur wax oo kaa dhibaya male. marka intaas le adoo samay kartid inaad na aragtid oo na daawatid ha iska sii bixin, horay ha u sii haadin fiidiyowga. markaa aragtid wax yar naso daawo. halkaa hadana waxaan ku haysanaa waa istaraabkii ayaan halkaa ku haysanaa. istaraabkii ayaa halkan kusoo darsanaynaa. hal qaando camal ama 2 qaando camal ayaan ka dhiganaynaa. hal qaando saaid u buuxdo iyo hal qaando kale 2 qaando ayaan ka dhiganay istaraabkii. marka waa isku qasaynaa asxaabey, si fiican in loo qaso lees dhexgeliyo waaye, kareem camal laga dhigo. alaabtaanaan ku dhahay lagama sheekey kara ku dhahay sidii jirka kuugu dhaqayso ee kuu nadiifinayso. maanta iyo biri haddaa marsato biri aad meel ama xaflad ama aroos u socoto lagama sheekey kara ku dhahay jirka dhan quruxda iyo dhalaalka aad ka dareemaysid wax la soo koobi karo ma ahan. waa kaasaa sidaas ayay ku soo baxday. wax yar ayaan ku dareynaa saliida, ma ka badinayno saliida, ma ka badinayno. saliida waxay ku siinaysaa si hadhowdi jirkaada uu u noqdo jir nadiif oo maasha Allah oo sibibix markaad ka dhaqato. kareem kale uma baahnid. waxaan ku dareynaa biyihii oo ubaxa ayaan ku dareynaa, ma ka badinayno sababtoo si kareemaad waxyaabo badan lagu dara asaa jilicsanaay. waa kaasaa asxaabta qaaliga alaabtaan ku dhaha la isku kala kiciyo ku dhaha korka ha lagu dhaqdo maasha Allah ku dhaha baaquligaada le hor u qaadanaysaa ku dhaha musqusha la sii tagaysaa ku dhaha waa isku soo hufaysaa adigoo wax kale ka soo bixaysaa musqusha. adigoo adigii aan ahayn ayaa ka soo bixaysaa ku dhahay jirkaada meelaha madmadowga leh xusullada, laawiyada, qoobabka ay yeeshay meelaha kaa madow dhan waa ku istiraabgareynaysaa ku dhaha si fiican ayaa lagu masaajeynaysaa maasha Allah ku dhaha jir qurux badanoo kaala arag ayaa la soo bixaysaa. qasqas iyo kiimikaal waad ugu maarmaysaa ku dhaha alaabtaan. asxaabteyda qaaliga alaabtaan meel ha lagu soo sheego. gabdhaha umusha ka baxaayo, gabdhaha aroosyada isku diyaarinaya, xafladaha, qalin jibinta adigoo maasha Allah dad kale ka dhex muuqanaysid ayaa soo bixaysaa ku dhahda alaabtaan isku ogaatidaan ku dhaha si fiican jirkaada aa u istiraabgaraysid, burushkaada hore aa u qaadatid oo si fiican isku soo xoqdidaan ku dhaha maasha Allah lagama sheekeyn karo. waa kaasaa asxaabta sidaan isugu dardarnay iyo waxyaabaha aan ka samaynay waad aragtaan aan u malaynayaa. alaabtaan iyo natiijadeeda ayaa laydinka sugayaa. wax qabad fiican ayay leedahay alaabtaan maasha Allah. jirka horta wasaqda dhan way kaa saaraysaa, jirkaada jir qurux badan oo dhalaalaya skin soft iyo qurux badan ku siinaysaa.
ما شاء الله كل لغا ما sheekay kara alaabtan hadal laguma soo koobi karo ninkii yaqaana waxtarkeeda marka waa kaas idinkan la soo baraweeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh